السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada saaxiibada ku xiran kanaalka Iftiinka. ku soo dhawaada muuqmaad saaxiibayaal. maanta muuqaalkan waxaynu uga hadli doonaa ahmiyadda waqtiga. intaan muuqaalku gudgin haddii aad nagu soo subscribe leh haddaad ka mid tahay asxaabta like dhac ku sii si aan u soo badno muuqaalada noocan oo kaleeta ah. waad mahadsantihiin saaxiibayaal. haddaba ka bogshaha boon muuqaalkani. aamin la'aanta ahmiyadda waqtiga. waxyaabaha ugu badan ee waqtiga lumiya waxa ugu cadcad in uusan shakhsigu aaminsanayn ahmiyadda iyo qiimaha waqtiga uu leeyahay. wuxuu u nool yahay maxaa iga galay waqtiga, wuxuu doonay ayuu sameynayaa, waqtigana ma xushmaynayo, ciyaari dheeldheel ayuu isaga dhex dabaalanayaa, kumana baraarugsana inuu waqtigu soconayo cidna uusan sugaynin. ibnu mascuud ayaa yidhi, ilaahay ha ka raalli noqdee, waxaan ka qoomameynayaa maalin ay qoraxdu soo baxday, ajasheeduna ay soo dhowaatay oo aan camal siyaadsan. daqiiqadda kaa luntay haddii aadan ka shallaynin waxay caddaynaysaa inuusan waqtigu agtaada ahmiyad weyn ka lahayn. waqtigu waa hantida ugu qiimaha badan ee aadanaha ilaahay jalla jalaaluhu ku manaystay, waana shayga ugu qiimaha yar marka la eego dadka sida ay ugu ciyaarayaan oo in ugu beerdareynayaan meelaha cidlada ah. qiimaha waqtigu inuu sareeyo waxaa ku tusinaya qur-aanka kariimka sida eebbe suurado badan bilowgeeda ugu dhaartay wannahaar wadduxaa waalfajr. ilaahay shayga uu ku dhaartay waad dareemi kartaa halka qiimaha uu ku fadhiyo. sidoo kale sunnaha waxaa ku soo aroortay axaadiis badan oo ka digaya luminta waqtiga. nebiguna had iyo jeer dadka ayuu ku baroorin jiray inay waqtigooda si wanaagsan ugu faa'iidaystaan si aynan dib ugu shallaynin. abi barza wuxuu nebigu ka wariyey inuu yidhi, addoon dhaqaaqi maayo maalinta qiyaamaha ilaa 4 waxood la weydiiyo. 1 cimrigiisa halkuu ku dhameeyey. 2 cilmigiisa waxa uu ku sameeyey. 3 maalkiisa meesha uu ka keenay iyo meesha uu ku bixiyey. 4 jirkiisa wuxuu ku baabi'iyey. waxaynu soo gaarnay gabagabadii muuqaalka haddii aad ka heshay like saar oo gaarsii saaxiibadaada si aan u helno saaxiibo sidaadoo kaleeto u fiican. waad mahadsantihiin saaxiibayaal. intaan ku kulmi doono tan iyo muuqaalkan xiga. amaanillaah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.